important for a democratic culture. And it's also important because free media is a place where measure individual liberties lagu ilaalin karo. Ya hadli hadii jaraa'idka afka laga xiro oo aan hadli karin. Ya hadli qofka dulman ama dhibaato haysato ya qabanayo qofka fooq sharci ay xuduudka ka gudbaya ama korrabta ama distorka aad iyo aad cadaynaya ya qaban hadii aan dadkaas soo saari warka. Hadday ama dhacday warka markii la soo raacan la qarin hadii wanaag dhaco banaanka markii la soo saaro si dadka ay ogaadaan. So the functioning independent media is very important. Like in the media in edabiyya la toy akhlaaqiyya la toy kartideedii la timaadii farsamadeedii sida la isku maamulo waa important. Like the goal way oo Somaliland. And finally xalay waxa la cashay dad magaalada Hargeysa ilaa maybe 25 people that could do Ilaahi yawm la cashay oo madax ka different civic organizations, leaders of different civic organizations last night's meeting. They were impressive, but quality, halkay taagan yihiin iyo maskaxdooda iyo aqoontooda iyo fikradooda iyo wadanka siday u garanayaan halka in la marar loo baahan yahay iyo wanaagga la joogo sida loo sii hagaajinayo. Debate weyna wana dhex maray oo si wanaagsan cashadii laakiin functioning civil society organizations iyaguna way jiraan aad bay waxaa soo guura laakiin haddana waxaa jira challenge badan oo Somaliland weeyaan. Many difficult challenges Somaliland. Laakiin wax laga qaban karo waxaan soo qabanay wada difficult challenge bay ahaayeen. Waa soo qabanay they are now in the bank. Waa kay bank inoo yahay hadaan la iska daado. Anigu labada ugu waaweyn ee aan arkayo challenge-ka hor yaalla Somaliland. xagayga oo caawa khaasatan Allah ya barxooga yarafo waxa weeye kow shaqa abuur job creation employment job creation waayo ugu yaraan close to 70% maybe even more of the youth in Somaliland just like in the south also in Somalia are unemployed no jobs for them. If you don't have minimum opportunities for jobs at a very young age. And you're looking at maybe 30, 40, 50 years of unemployment. They must be carried for 40 years. So agitation begins to build up. This is what Egypt, dadkii banaanka u soo baxay markii madaxweynihii la ridayay banaanka u soo baxay intooda badan waxay ahaayeen dad dhalinyaro oo qaarkood jaamacadaha waaweyn ka soo baxeen some of them in their 30s oo shaqo aan hayn oo wali hooyooyinkood iyo aabbayaashood la nool because they can't afford to get a little room let alone an apartment. They can't get married. Egypt waxa gariiriye wadankaas waxa ugu weynaa qaybta ugu weyn taas ah dhalinyaradii oo aragtay in dhaqaale aanu jirin shaqana aanu jirin mustaqbalna aanu jirin waa in badan baan ka aqaana dhalinyarada anu tegay dhowr goor Egypt ayaan markay taasi isku ka beerto dawladii oo xaafad ay yeelato oo isaguna caruurtiisa ay doonayeen inay meesha qabsadaan labadaas isku ka beerto dimuqraadi la'aan iyo shaqo la'aan waa balaayin baas wala snacaya wala kala guuraya wala marka hadii wax badan baa dhacay gariir weyn baa dhacay taasi waa mid aawata gariir job creation that's not my topic today but it's a very important challenge that confronts the people of Somaliland and the youth. The second challenge kalabaad anu waxaan qabaa inay tahay arinta international recognition labadana way isku xidhay oo adduunyadii haddii aanad xiriir la lahayn investments ma iman karayaan adigii maxaan ku dhahay uma tegi karaysid meel yara la dustusay iyo qof kaloo abbaan aad samaysatay waxaan ma ogi you can't deal with the international system directly haddii aanay jirin deen laysa qoonsan adduunyadu hadday kaa xidhan tahay particularly in this age of globalization if you can participate in that process with your own stature and identity waxa dhibaata noqonaysa qof quarantine lama xidhan marka arrintaas dunia caawa inaan waxoogaa ka hadlo lama dhamayn karo way culus tahay laakiin perhaps Mahmoud can say a few words a little later maybe even rebut some of the things I am saying su-aasha markaa ugu horeysa waxa weeye recognition ka arrintiisa first question what is it what is recognition maxay tahay yeah how do we define that sideen u macnaynaa what recognition is aniga waxay la tahay
recognition waxa weeye at least in the first instance adduunyada kale khaasatan wadamada waaweyn quwadda leh ee adduunyada dhaqaajiya adduunyada oo dhan laakiin wadamada waaweyn ee adduunyada dhaqaajiya isku wada mid maaha jasiiradeeda la yidhaha Mauritius hadday ku aqoonsato way wanaagsan tahay on an important little island off the coast of Africa, Mauritius. Works very well, by the way. Laakiin dee lama mid ah hadda dowladda Canada amba Sweden amba Germany amba United States amba Brazil amba dee wadamada caynkaas heavyweights in the international system inay ku aqoonsadaan isku mar marka waxa weeye aqoonsigu waxa weeye inay ku gartaan inaad aqalka gudihiisa ku jirto oo la mid tahay wadamada kale khaasatan wadamada quwadda ilaa xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo militariga iyo sayniska iyo cilmiga waxaas oo dhan inaad ka mid tahay oo markaa ay ku shaabadeeyaan adiga wadan ahaan iyo dadkaaga citizens labaduba waxa ay sheeganayaan oo ah inay yihiin dad xora oo iyagu isku taliya inay dhab tahay inay shaabadda kuugu dhiftaan marka qofkii dee doonaya inuu tago uu tegi karo qofkii imanaya xaggan uu iman karo shaabadda lagu dhifanayana the confirmation stamp that you are now recognized as a member of the international community waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah the bilateral relationships xiriir inaga iyo Germany inaan xiriir wadanahay inaga iyo Sweden inaan xiriir wadanahay bilateral one to one country to country taana dee waa calaamadeedu waa safaarada weyn maxamuud waa nin aad iyo aad karti u leh وانا معانان لهي هذين ده هم كان قانون فايز لكن ده سفير ما وحوي representative سفير ما إنه جوجا هم كان سفير كينيا وجو marka waxyaabaha lagu garta calaamada affirmation the confirmation that there is a mutuality here of recognition as two sovereign states it's the appointment of emissaries and emissaries are primarily ambassadors في dadkii la shaqeeyay waa bilateral تكلم لو قلت confirmation كا وحوي إن كم من نقطة ورنا وين أم بالريجن كا أم بعد الدنيا ذا إن كم من نقطة يعني وضع من كل حدنا multilateral relationships تهورا bilateral لا هذه يوضعك لكن multilateral ورنا وين وضع ما بدن كدحية الدنيا ذا يقولنا قيم كجدر ما ممكن كم إذا for example United Nations is a word لما بقول ولا لما قاعدين لا نقول يا لما بقول ولا word جرا AU African Union is another one واللي بعكت إنه ينور IGAD وكسير regional North East Africa in قبل نقول هي كرسي نقول هي ورهذا كلا حاجة دقالية اللي ما حصل يقولنا multilateral African Development Bank. It's the biggest African source of African loans for African countries. African Development Bank. That's Somalia. Belsarik Gary. Like in the Somaliland, in the Somaliland, how can I say? Belsarik Gary. In fact, one of my own family, we have very senior economists. Like in the واحد كسي معنا الله in Somaliland و مارتي على كي يبي هذه الجير كل حاجة وحكم the World Bank is another multilateral organization ودقالية دويل ماليه أو سو مرمرية حوله أي مرمرية أي كمية خاصة وانتم سو كوريا مركا الله واحد صدحات أو شعب ده أو صدحية وحوي الرماها socio-economic transactions إن تقيم جلسوا وبنقالها النقطة بارمها برشدها النقطة جامعتها for example جامعات دني المعلمين تدو أي تجي كلام حكرا هاي كونفرنسات كاسو كلام لو يذكروا هل كان لا إيمان كرو معلمين تقاركود حكرا كان أي جوي كلام مدبر ده حرير عين كاسر صحيح لكن حرير كعين كاس إيمان هدو جرو مرة ما كريه إلا الدولة أي نقطة دي جارنتي أنا مركي عمود أساسي واحد يسكت ده إن جامعات ده المعلمين ككلام غربا ينفع تقولي وانتجنا retirees who were very good وانتجنا a few years after it was established عمود markii dambe waa su'aalay weydiiyeen iyo dawladda Mareykanka kana ay weydiiyeen because they want to make sure that they are in laga warhayo xiriirka caadiga ah iyo markii la yiri wadanka lama yaqaano oo hadaad
حمر صار يميلي لكن لما يقع دي بي وغنقضه حتى قف بان دوني إن صوت درنا أو يمدو إيرو يونيفرسيتي وصور سميه يستدي يا هالكي لقى بلعبي هالكي جوكته هالكي كوسات وهي واحد دوني إن إيرو كدقنا more technical university ولا إيرو technical institute وهي ما technical وحيان حسابي إنجليزي وبيستاس لكن أنت كلاين فرصة مدرسي concentration بسي وايد كأنه سمعنا أدبل لقبائي technical نوع architecture أنا قلت كلية لسه أنا قلت refrigeration systems أنا قلت أنا electronics engineering أنا ما عين كاسا إن لك قف عن دوني صوت إنه يحط ما نبينا أنا يا بيبي وانا نبينا ديار تقدر دي يحب نبينا ما كنت بدي نقف في حاجات تبو وحيدي بل يركب دي because ما هو هذا واحد مثلا ترى هذا تكتب يقول دي والله سود الجوين وانا أصور هذا أنا قصدي I don't know maybe أنا انتهت النقطة اللي هي ومركا ما فهم سنة قضية إني وضع بسيط يعني ما فهم سنة لكن socio-economic transactions around the world in participation كان هذا يقول بوح أتكلم كشلون guarantees كتر كسيك لا أقاصد ومركا واحد طبعا إنه ليه هاي وتجرع السن إنه ليه هاي لكن وتضع جرع السنين واحد يكون حرام تاعي صفة وطن كاسوسية هي سلوك يمين أي كحلة. وين نبير تاي for example إن لو أقاصده وده الدنيا ده كم النقط. هدي تاي وطن لجوميسين جري عمرك حرية قات. Decolonization process. If you are a country that has decolonized, then the project of being recognized by other members of the international community is rather easy. Why not? We have gone through that. And almost all the other countries have gone through that in the so-called colonial war. In Greece, you can buy so much that already قادته وين Libya time مركا إن لو واقوس ده ولا دكتي إنه كنا وين نقول تاسي one way. الجميز كمان نقول كرنا أنت لنا انتبه لأنه يرجميزته ده بيتنا أكسر بحنا. We can't do that. That's why for us it becomes difficult. أرينا بعد أو يدنا جلعسة إن لا قوس ده وطن بس وحوي وطن كأي كلا تجي يعني كلا بحية إن كلا بحيتها سواء تاي واحد لوجه شيء أو what I call mutual splitting yeah mutual divorce لوجه شيء وهذا تد صاحبه هو لكن تسلك جرا واير أساسي قبل وقوي سينو كان بس وين نسكور هاي ناحية تعرض وين نسلي إلى عشان لكن هذا يقول لك أنا الله شديد الدنيا ذيك أنا استأسف السعودية قال كذا يجيبوا مرسدان تذكر marka de si heshiis in lagu kala tago marka la isku duceeyo ya inta la isku duceeyo sida lagu qaraali karo taasna way dib yaraysaa in la aqoonsado labadii wadan ee kala tagay in gooni loo kala aqoonsado taasna maanta inama haysato de waxa kala tagaydaas wali midhaheegiyo buuxa may inagu waan alaabteeni waan xiranay xamaanteeni waan soo xiranay waan soo dhaqaaqnay ودن كأننا وين محن كلها قبصنا لكن ده يجي ولي وتوانا وضح الله ياي وحلا يري لا إنك صار الكاسو ياي بدأ ضعيف ولا وضح الله يا لكن ده إلا ما جارين ميل فصح حسين ده والله كلاقات وما كان بيدنا الله عليه ما كان بعيد سنة ما كان سلا الله بدأ يدنا وكان سفارة ده ترتوه كنا عايز سفارة هذه سنة سفارة عايز ما تحط حمر عايز أنا ولي ويعرفته ومين نانجري نعم waxaan doonaya marka inaan u yaraano su'aasha why does it continue to be so difficult for us 20 sanadood iyo inka badan baa laga joogaa maxay inoogu adkaatay aynaga inoo gooniya khaasatan waxaa kale soo sheegay adduunyada kale maahan aynaga inoo gooniya why is it difficult for us way fara badan yihiin laakiin dhowr baan doonaya inaan soo hordhigo يتنا نقول قبل one or two things I'm saying هاي والله بهني إن لا قبته هذا إنه مدن هاي سمان لا إن لا قبته إنك يدولد yeah so that we can make progress on this one لا ما تنسى نقطة بيه أنا رفعت كنا أنا كنت نكيد أنك كون I think we're not أذكرها because the Islam so شيء decolonization he went sort of that was the first birth of Somaliland British Somaliland originally 26 June 1960 وإحنا نقولنا وطن حقة marka dib dibta ugu noqon karo bayno the decolonization process walaalahay
soomaaliyana kumaynaan heshiin weli in la isku duceeyo. In fact anigu waxaan odhan karaa la iskuma ducayn maahe walaalaheen muqdisho weli iyagu waxay ku doodayaan annagaa ka wakiila, annaga ayaa ka wakiila. xarunta waddanku waa Soomaaliya, madaxweynaha waddanku waa xasan sheekh maxamuud, dowladda halkaa ka dhisan ayaa ka wakiila jamhuuriyadda Soomaaliya. marka waa degmo ka tirsan Soomaaliya. doodaas iyagu goor walba adduunyada geeya every time. marka way sii adkaynaysaa oo dee tashwiish xoog leh ayay sii gelinaysaa dee socodkeennii ma ogtahay tashwiish xoog leh ayay gelinaysaa. oo iyagoo calankii iyo wadajirkii weli way ku dhegsan yihiin, inkastoo anigu sidaan qabo aanay garan hadday ka dhabaynayaan dee unionka inuu waa baktiga noolaado dee inay shaqadeedii iyo hawsheediina u malayn maayo ma arkayo dee inay laymayaan, laakiin haddana waa lagu sheeganayaa oo inaad ku jirto. taasina way sii adkaynaysaa adduunyadana waxay gelinaysaa moron oo codkeennii moron bay gelinaysaa because taariikhda ka dambaysa. arrinta saddexaad ee ina hortaagan anigu waxaan qabaa inay tahay inaynaan lahayn ilaa imika adduunyada wadamada waaweyn maroodiyaasha adduunyada ya waxay sidaan u joogsadaan dee sidaan loo yar wada eego oo gacantayna qabtana ilaa imika ma hayo ya gacantayna qabata oo tidaada dadkan waa taariikhdoodu waa taas sidaasay wax u soo dhisteen howlahaasay soo qabsadeen dimuqraadinimada ay ugu horeyso in la fahmo oo markaa dee si buuxda loola sheekaysto ya waa loo baahan yahay albaabada inoo fura ya taana ma haysana ilaa maanta inta aan ogahay ma hayno. ta afraad ee soo raacdayna hortaalla and maybe the most critical one at least aniga say ila egtahay we have no strategic plan for this. anigu dee waxaan islahay independent academic soo adiga oo haddana dee dadka iyo ummadaada ixtiraamaya haddana dee runta inaad yara sheegto waa lagama maarmaan haddii kale dee ma soconayso Somaliland runta la isku yar sheega waa important. in safar dheer baynu ku jirnaayo dee u baahan tahay haddii kale dee waa waxa laga yaabaa inaynu saa u maraysano halkaynu sidaa u soconnahay. marka anigu waxaan qabaa really inaanay jirin ilaa caawada aan idinla hadlay intaan ka warrayo. I might not know, I don't know everything. Like in that as an observer of this for some significant period of time, there is no strategic plan for how to. What that is the normal strategic plan. Or haphazard, yeah. But had the southern you, but had the whole kind of all that. But had the year not there haphazard. These last 20 years and more in energy. Had this strategic plan as you know, how garan, no, maybe 4. يلا كو وحلا وجرا ده مسج علص يا أمل والبيات ما هم مسج هلا يا قوس هذا مسج ما هلا يا قوس وحلا متاي يلا وحسية يو كلمات مسج ما وطن كان لما تنكي سنة وحو قفصدي وحو حانجري يدد كانوا نهاي مسج انت كوين بان laga soo saari kara ya oo adduunyadu ay u soo joogsan. marka message-kaasi anigu ma arkayo strategic plan kana de message kuwa very important. fariinta yaa qaadaya fariinta ma wasiir iyo shandadiisa qaadaysa mise de adduunyada Somaliland dadkeedii baa u dhan oo wasaarad baa jirta dhab ah oo foreign policy ka samaysa mise waa wasiir iyo shandadiisa oo kolba shirku iyo ordaya waa ay dadka qaadaya fariinta qaadaya adduunyada gaarsiinaya capacity-na ma u leeyihiin iyo karti inay fariinta waranka halka ugu dambaysa gaarsiin karaan. ama jaamacad ha la hadlaan ama madax kale ha la hadlaan ama business community ha la hadlaan ama academics ka ha la hadlaan civil society doonta target ka la sameeyay waranka halka ugu dambaysa ma gaarsiin karaan. يا قاضي فرينتا سو هلكا تنبيس الجالسين والدلولين يدي إذا كان دلولين فصدحات بحوي محل الكلينية وحول بحوله يباهين يا
the economists, at least the neoclassical economists say frequently, there is no free lunch. والغضب بلاشي مجلس صاحبه غضب بلاشي مجلس تنادي هذا الكيك بدأ الدنيا لما تدور السعينة تسوجيت بحاد قليل ده investment كانت قليل سام حيطة أنا لقى ما فكرين أنا بس أنا ورك يو واسكحب حسد ووح مرتي وسيدي ملتري هو كلوي يا قال الدنيا كلها كل سوي دميات ملتري سكون ملاها سكون والعالم هلك أودي رب الله دميو قرصي تابع المودي والله هي أنقصي ما تمام So the investment. And then finally, how can the Guinea? Well, how can the Guinea for India? Adan I know how they adan green. Adan I know for India. That he carry and I know. Investment kina lahayo. How can the Guinea? I mean, no person. Well, and do you know why Balarat? La Bokoro wadani ya income on the budget. How can the Guinea? And the more the Gary career or Hole didn't mean critical. They didn't wait Balanta. How can the Guinea strategically? Where are the critical places where you want to penetrate? It don't say in the roads. The other way to stay or the hectare. Tazna and one Kawaii civilization low the the deadline. Halke, Wachti lock up to later on Wachtiga, when Halka Jugna, Wachtiga, when Halka Jugna, Wachtiga, and Halka Jugna, like Gushio. So that's what I mean by a strategic plan, at least some of the details. In time. أنا قصدي لك. فأشمك وحوي وقدما سوق الكبير what to do. It's an eternal question for human beings. They have a problem, whether they are Americans or whether they are Czechs or Russians or British or Germans or others or Somalilanders. It's an eternal question. You have a problem. The next question then is what's to be done. Lenin posed this question quite a long time ago. What's to be done? Book, in fact, called What's to be done. So we have a problem. And the problem is that we don't have access to the international system. What's to be done? Even so and code. I think what I strategic plan. Like I'm sorry. Strategic plan. And I know the internet check is to help and then it collects. That's not that. But actionable strategic plan. Britain tomorrow. What details is in Somalia? Or whenever the Somalia Commission, Coffee and Commission, National Commission, that Mida or Somaliland or so sorry. But the one that I could get and the Joga. قضيتنا فهمس ميتا على صوص صاروا إلى كوميشن قاساتين وقت الله قبضه لسيه فاسيلتس كي يخش قينيين يجعل يناهو strategic plan كعين كاسكنا with all it is fine details commission عين or commission عين independent commission وده ترى Somaliland وده كأوضاع هذا جوش عين لهلا الدنيا لكن ده أن كم مدحوينية كحيين وحان كفص عقادنا They use their intelligence and their mind and their knowledge in a son de GM وحيجا الله تهاي وضد الله مرة يسلا الله مرة يسلا جوشا لوراتي commission حينكاس. وأنا كنت لي أنا by the way دولة ما كده ويدا نميت وأنا كنت لي أنا. Thus, and second, وزارة إنلا so if this is important for us, at that time this is critical for us and I think it is. هذين يسكف لنا وحول بود الدنيا ما لها الباب اللي سوق لها حسن لنا ها وتطبع الباب في سماء لنا قراعي بريتا لا غفر صون نقد ده yeah they thought I no problem زيرك يو محاكو هاي شندد دي سواك لكن دي ما تاسم جتين لك القراعي ندم يضرب بدونين القراعي مركا وزارة حقهم ناتو ده طيلة بدي بدي هالجوجان like محمود and others أما وضع البوليس هاجوا قالوا وزارة دبعة إلا السماء أو هولون كسرنا أو ما راح أي ندون particularly إن ندلوا لينو desks عين كاسة for example هذين ولا هاي European Union desk European Union عندنا إن الباب كافر desk هلكا الرئيس يفضل desk الرماس أو أنا هاين يا أحمد إسماعيل سمتر أو مدحوين كحيجان أي يسكت فامليهين أي هلكا شغلة قصينة not that
tahay mid baan dirin laga yiraahdo yaa arinta inoo soo goyn kara yaa inoo safarka inoo dhaqaajin kara in la yiraahdo criteria competence ay noqoto safarada in la sameeyo halkaas hadisa headquarters yada staffkii ka shaqeynaya in la shaqeeyo intii taagteen tahay optimally talent. A third thing I think we can do waxa weeye meelaha ay inoo joogaan dadka representatives I wish they were ambassadors but dadka representatives ay inoo joogaan ma badna I know a few places hadda waan sii maraya London iyo next week iyo probably Brussels and meelahana upgrading in lagu sameeyo upgrading waxa weeye the quality of the people who are there iyo the resources ay haystaan in la sameeyo upgrading haddii kale waxay noqonayaan waxa weeye waa gacan faalij ku dhacay oo kale noqonaysa wadisa oo la laadate itana marmar timaada maxaan ku raayay hadis and they can't do much unless quality ay jirto investment and resources na la siiyo ay ku shaqeeyeen lobbying iyo hawlay galayaan inta campaign inta casho ay bixinayaan dad u yeelanayaan casho siinayaan kan qada siinayaan waa de hawlo badan weey so they have some capacity to carry that through waliba markay tartan kula jirno walaalaheen oo iyagu la anaga ka wakiila ya waliba ma wakiiltiin de wala la dhigta xisaabta taasina waa important or dadka dibadda inoo jooga aan cidlo laga helin or they get exhausted in the end because they have no support upgrade or establishing new meelo cusub oo wakiil ka noqda dadka jamhuuriyadda ku nool particularly in key capitals of the world meelaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo bulshada adduunyada laga dhaqaajiyo waana calaamadsan dad ka soo dhalaali karo oo la maqraysan kara in la geeyo you have a representative in Britain London haduu qof joogo waa inuu noqdaa qof jaamacadahooga ka hadli kara business class-kooga la hadli kara political class-kooga la hadli kara ya camera maalintuu helo is helaan dawaqin kara ya lama soo ridan karayo wax lama soo ridan taasina waa taas fourth point I want to make and this is the last one waxa weeye dadka dibadda inaga jooga diaspora la yiraahdo way badan yihiin nooc walba waan leenahay dad faa'iisay dad saaqiday dad yar dad waaweyn dad wax bartay dad aan waxba caynkaas baran dad xoolo badan haysta kuwa gaajo hayso oo kadeedan nooc walba waan Soomaaliya across the world from East Africa to the Nordic countries and into Canada and on. dadkaas sida mobilization loogu sameeyo ilaa imika lama sameeyo sida I can tell that much more affirmatively than the others because I am one of those si buuxda oo si dhab ah dadka loo moodo oo lagama soo saarin markaa ya dad diyaar u ah inay ka qayb galaan arrintan maxaa ka mid ah dadka haddii laga helo waxaa ka mid ah dee in la yidhaaho look strategic plan-kii baan soo samaysanay strategic plan-ka sanadkii waxaa ku baxaya la siisiyo $10 million ayaa ku baxay war dadkii dibadda joogay oo inteed ka qaadanaysa 20% 10% 15% 15% ya intaad ka soo ursan masaajid walba qasacad la dhigo ya lagu rido shilinka lagu rido dollarka lagu dee qarafada buuxda oo Soomaaliland ma qayn isla loo oo dadkii xiisaha la geliyo that we are marching towards something that is great we're marching marka intaad socon karta la socon maalintaad ka daashay damba intii ilaahay ku timaado waankeeda laakiin safarka ka qayb mobilization ka caynkaana ma inaaso anu waxaan isku dayay aniga kana riixriixina it's not easy Canada waa markaan halkan ka tagay Canada ayaan Toronto one of the places from London waan la hadlay dadkii Somaliland man weyn isku yimaadeen jaamacad isku yimaadeen London Canada meel weyn bay soo kaleetay Toronto waan isku nimid si wanaagsan aad iyo aad u qurux badan waad ka aragteen ma laga yaabaa TV iyo internet ka waad ka aragteen waxaan ku yiri maalintii waa inaan imika bilowna sida loo sameeyo at least for the time being magaca ka wanaagsan waa loo helay
laakiin ingiriiska waxaan ku iri inaynu imika bilowno in la sameeyo organization diasporaha oo la yidhaaho global solidarity for Somaliland. Global solidarity for Somaliland. hadduu de hadraawi joogo isagaa dee markiiba dee goyn lahaa translation oo macaante I can't. laakiin dad adduunyada ku firirsan oo reer Somaliland oo damqashadaasu ay ku jirto oo xumaan kale u jeedin anagu xumaan uma jeedno demonizing our brothers and sisters in the south ma jeedno laakiin hawsheena dhisa in dad caynkaas la sameeyo oo marka dambe xitaa marka haddii taa la sameeyo la furo account bank account la furo oo maxaan ku lahayd transparent ita website la sameeyo account oo la yiraahdo qof walba waxaad kari karto bishii from $1 to $1,000 and more if you can. halkaad ku soo rito fantas sanad halkaad ku soo rito walba ku soo hawlaha caynkaas in la galo way adag tahay I'm not making it easy laakiin tanu markay de si kala diyaartay marka waxa dibadda laga keenay iyo waxa yareen haysana halkan labada in la isku daro safar ka dheer dabadeed ya maxaan ku raayay la bilaabo si xoog leh loo soo this is one of the things I'm going to do إما كلام دوني إن سوق الجليو سيلده سبحان الله ليش جوكتها إن تاج كلام اللي كمان سيما يا I'm going to try to preach this yeah إن وحي جاي زين تنكلم but I think we need to do that marka arrimaha caynkaas haddii aynu sameeyno anu waxa ila tahay waxa inoo suurtageli karaysa kullayba inaynu dadaalkeenu maanta uu ka bato halku taagan yahay guusha ilaahay baa haya laakiin de ilaahay wuxuu la yimaado amal la yimaado amal la timaado waa laga barakayna shaa ya aad dhowda hadaa sa amal la iman ma socdo marka halkan in laga dadaalo gudaha dibaddana laga dadaalo strategic plan kaana si wanaagsan loo sameeyo I think haddii sidaa yeelno we have a chance of making our voices heard with a greater capacity than we have done so far marka halkan ku joojiye aad iyo aad baad mahadsantihiin thank you very much